Iran ma waxay qarka u saaran tahay inay disho madaxweynaha Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa si weyn u falanqeynaysa dhacdo bishii July ee sanadkan ka dhacday magaalada Ankara ee wadanka Turkiga, taasoo madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump uu diyaaradiisa khaaska ah Air Force One ku bedelay diyaarad kale oo nooca C-32 ah xilli uu kasoo duulayay wadanka Turkiga kadib markii uu ka qayb galay shir madaxeedkii ururka NATO sababo la xiriira in la helay hanjabaado rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo oo ah in ay Iran qorsheynayso inay soo rido diyaaradda madaxweynaha Mareykanka. Muuqaallo la baahiyay ayaa la arkayay madaxweyne Trump oo diyaaradiisa Air Force One ka raacaya magaalada Ankara 8 July isagoo ay ag taagan tahay diyaarad kale oo nooca C-32 ah, balse daqiiqado yar kadib laba gaari oo nooca cuntada keena airport-ka ayaa soo galay kuwaasoo isku jaray diyaaradii kale ee madaxweynaha ag taallay. Madaxweyne Donald J. Trump ayaana la waayay, waxaana ugu dambeyn uu si lama filaan ah uga degay diyaaradiisa isagoo raacay diyaaradii kale ee lagu qarinayay gawaarida cuntada. Warbixintan ayaa lagu sheegay in aan xataa xubnaha ugu dhow ee aqalka cad oo ay ka mid yihiin saxafiyiinta iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada aan lagu wargelinin, taasoo la macno ah in ay raaceen diyaaradii hore uu madaxweynuhu ka degay. Intii ay hawada ku jirtay diyaaradii madaxweynuhu ka degay, waxaa la sheegay in la amray in aan marnaba la furin daaqadaha, isla markaasna wariyeyaasha loo diiday in ay qaadaan wax sawir ah. Warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa xubno sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo diiday in la shaaciyo magacyadooda ayaa sheegay in ay heleen xog lagu kalsoonaan karo oo ah Iran oo isticmaalaysa gantaalada garbaha laga tuuro in ay ku sugnayd meel aan ka dheerayn goobta uu madaxweynuhu ka duulayay, iyagoo qorsheynaya in ay soo ridaan diyaaradda madaxweynaha. Waxaana mar la weydiiyay madaxweyne Trump sababta uu uga degay diyaaraddiisa, uu sheegay in ay ku timid arrintaasi talada ay u soo jeediyeen staafkiisa khaaska ah iyo ciidamada amnigiisa. Madaxweyne Trump ayaa la weydiiyay in ay Iran dili karto, waxa uuna sheegay in mar walba oo ay ahayd qofka koowaad ee ay raadinayaan.